soo dhawaada channelkan waa Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga Bitcoinka iyo cryptocurrency-gu maraya maalin kasta video cusub aan soo duubnaa. Waxaan lagu talagalay dadka Soomaalida adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, aad maantadii koobaad tahay, like iyo subscribe taabo si qofka looga faa'iidaysan karo waxaan ka wada hadlayno. Aad iyo aad ba mahadsantihiin. Maanta waa idinkan arkaa xaggan waxaan joognaa chatka waan joognaa eegno cryptocurrency chat. Waxaan aragnaa Bitcoin, Ethereum 2, TST waa kuwan wada buuxan. Maanta waxay aragtay inay saara fiicnaatay maanta, laakiin wax la isku halayn karo ma marna hoos buu kacay marna sare buu kacaya. laakiin maanta waxa isleeyahay wuxuu kacay wax kala maaha. waxa weeye dadkii waxay ka fakarayaan wax la isleeyahay qolada interest rate ka kacaysa lacagta ka waxay isleeyihiin in interest aad u kacin ina ka dhigan 70% ina ka dhigan third quarter ina ka dhigan. marka dadku waxay filayaan markii hore in 100% laga dhigay 100%, laakiin waxa la imka dadka qaar waxay ka fakarayaan arbacada markay meeting haystaan inay ka dhigayaan 75% hike. markaas waxay u fiican tahay systemka iyo kan wada way u fiican tahay. taa waxa keenaysa de marka haddaan interest rate la yaraysiyo dadka lacagta way amahan karaan, bangi ka saamahan karaan, markaasay gelinayaan Bitcoin ama meesha doonaan bay gelinayaan, guriga ku iibsanayaan, waxuma ismaanayaan. laakiin hadda interest rate das la adkeeyo oo qaal laga sii dhigo dadka marka lacag ma amahan karaan, marka way qaali ku noqonaysaa. marka taas maanta sidaan keentay kaan eegna waa taan wana Bitcoin maanta galnay waa ka Bitcoin taas maanta maraya intaas waxaa shalay intaas marayay. markaan aragno day trade ki waa ka markaan aragno hourly trade kana imika isagoo markay dadkii warka cusub maqleen intaas uu kacay waan ka arkay isagoo xagga mariyay maanta subaxdii uu saaka ahayd. marka waxaan waxa ku xiran dadku waxay filayaan economy ku xiran tahay iyo dadku say filayaan oo bangigu samayn doono. ka wax lagu leeyahay de aanida calaamadiyo waxa la leeyahay halkan the Fed inflation the Fed to inflict more pain on economy by as it reading big rate hike. marka waxa la leeyahay hike dheer ba laga fikiraya inuu dadka leeyahay Fedka inuu soo saariyo. Fedkaas wax kale ma waa federation ka waxa waa federation ka la saariyo Fed laga dhigay. marka hadaydan iyaguna wax kasta kiciyaan dadkii qaalabta ku qaali garoobaysa markuu ku qaali garoobdo dadku waxay iibsan karaan marka noqoto xagga economiga caadiga iyo economiga yarba. waxa soo dhan Bitcoin way taabanaysaa. dad channel ku cusub tahay like subscribe taabo. maalin kasta waxaan ka wada hadlaynaa xagga Bitcoin cryptocurrency-gu marayo waxa economic cusub marka noqoto xagga lacagta financial time-ka cryptocurrency-ga. like subscribe taabo si qofku insha Allah ugu faa'iideysan karo. marka maanta Bloomberg waxay soo qortay leeyahay Bloomberg oo tana Bloomberg waxay soo qortay maanta Federal Reserve will probably have inflict much more pain on the economy with inflation more. marka waxay filayaan iyaguna Bloomberg waxay leedahay waxa filaysaa inuu Federal Reserve ka dhinaca America jooga inuu kicin doono baalka leedo inflation wala interest rate kicin doono. interest rate waxa la kicin wax kala maaha, inflation kii ba cirka maraya. inflation waxa weeye marka waxa laabto caadiga ah xagga guriga la iibsanayo markay noqoto cuntada qudrada dawooyinka wixii cirka maraya. taas wax kala maaha, supply ba yaraaday. supply laga keeniyay adduunyada kale ama Turkey ama Ruushka ama Ukraine meelaha laga keeniyay China laga keeniyay ba yaraaday. taas wax kala maaha, dagaal ba ku socda badda lama mari karo. marka shibkii waa ku adagtay markaan laabtay inuu keeno delivery ku sameeyo. marka waxa soo dhan way ka mid tahay economiga. marka waxa marna u kacaya marna u dhacaya. marka haddaan ku soo noqono daily chat-ki waa tan imkana saamika warkeenay yarbo imkan yar dhacay statement oo high buu ku noqday. marka laakiin maanta isigasta waa 2% up weeye. marka waa si shalay way ka fiican tahay. marka waa ta Bitcoin asalkiisa dib u noqono. marka aan qabano 1 hour waxaan qabtay imka 1 hour waxaan qabtay chat baan qabtay saacadii ugu dambeysay xagu mariyay 1 hour waa taariikhda ku taala. marka sare buu kacay markii dadku filayaan inaan interest rate ka sare la kicinayn, laakiin waxa waa yara dhacay haddana xaggan hoos buu ka dib ugu yaro noqday. laakiin waxan waa iska up and down waxa ku xiran tahay economiga xaggu maraysa markasta sheegay oo waa ta. marka waxan waa wax la isku halayn kara maaha. qofku wuxuu baahan inuu education inuu barto inuu waxan akhriyo oo ka faa'iideysto maalin kasta oo xaggu marayo waxa ku cusub economiga adduunka xaggu marayo dhan qofku waxa soo dhan la socda. marka
dee waa taa laakiin saan filaya anigu waxaan isleeyahay anigu hoos bay yara dhacaya alaabta interest rate kicinayaan laakiin markay noqoto August markay saa u noqoto markay saa August u noqoto bitcoin saron buu kacaya wax kale maaha economiga saa nolonaysa fiicnaanaya ilaa imika dadka shaqooyinka way haystaan dadka wada shaqeynaya laakiin alaabta ku qaaliya markuu dagaalkuna saara dagaalka markuu nagara joogsado oo dagaalka heshiis la sameeyo dhinaca ruushka marka la sameeyo waxaan isleeyahay baalku markiiba saas buf saa u kacaya markiiba saasaan filaya anigu hay-ada aad maanta mahadsantiin oo maalinkan video saa dubnay maalin kasta waan saa dubnaa wax kasta waan la soconsinaa meesha ka socda like subscribe taabta hadda ku cusubtiisa qof lagu faa'idaysan karo aad mahadsantiin